مرشح مدحوينها حزب محافظة كلمية أنا قدوميها حزب قاسم مصبيح عبدي هي مدحوين كحجين سومالان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي أي وحى كقريب قالين مناسبة بلارن ما بينك أهلها وحزب كلمية مقالة هالجيسو وقبتي تاجريال ميسان له وكسر كذا قبل كجبلي كارهنا الدقمة الله يبدأ كواسي وكسر دقرقت حزب معارض كودني كس تاجرياشن كسر دقرقت حزب كودني ويسقط شريعة قوية هني يقول بوحجرد أي وحى لو جسم يوتيل كماسون مناسبة ضد بلارن كقريب قالين مسؤولين كلا كم ده هاي حمنا كم ده قلها وسير ده هي الدوينة ترى بدن وقريب وحى القاسي كهالي taageerayaashii ku soo biiray xisbiga kulmiye ee isugu jira aqoon-yahanka iyo waxgaradka ka soo jeeday degmada Allay Baday ee gobolka Gabiley gaarmoon dimasiyanayo dadka muuse ku faanayo ama ku taamayo waa cudurda dhalinyarada ee gaar ahaan kuwan aan sheegay iyo kuwa ka maqanba war hawl badan baa idin taale awoodihiina bal hadana tusoo aan dareeno anigu waa banaxsana hadana waan farxayeen aad baan idin salaamaya uu jiri doona insha Allah laakiin waxa weeyaan maxaa idin keenay kulay anaga waxana keenay oo runtii ka dambeeyay inaan kulmiye nimaadno tiyoona la khasbin lacagna lagu soo iibsan sifagalna loo isticmaalin shaqana lagu siin shaarka dawladda la hayo ayaa laga suuqay ma wax qabad baa laga suuqay inaan soo bandhigaan waxaana aad u faraxsanahay inaan ka mid noqono xisbiga kulmiye waxqabadkiisa markii hore muraayil madow aan u xidhan jirnay waan iska saarnay aad wax qabtaa xisbigu inta mid golaha wasiirada Soomaaliland oo kamid ah wasiirka beeraha Soomaaliland iyo wasiirka xigeenka iyaguna halkaas ka hadlay ayaa waxay soo dhaweeyeen aqoon-yahankan iyo waxgaradka ka soo jeeda gobolka Gabiley gaar ahaan degmada Allay Baday ee ku soo biiray xisbigeena wadani wuxuu yiraahdaa isbedelka wuxuu bedelayaa maciidu bedelayaa madalku bedelayaa ما قبل بدل إنه بدل يا ولا ما كان مقاشين بدل بروحه يا هاي يا ما تشوف بدل أي واحد راعيه ولا يروح على بدله لكن مناسبadaasi waxaa ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland عبد الرحمن عبد الله إسماعيل شير السيلعي iyo musharaxa madaxweynaha xisbiga kulmiye ana gudoomiyaha xisbigaasi mudane Muuse Biixi Cabdi oo soo gabagabeeyay munaasabadaasi waxaana ay soo dhaweeyeen taageerayaashan ku soo biiray ee ka soo jeeday gobolka Gabiley ee degmada Allay Baday sharaf weyn bay tahay in caawinta ka soo qayb galo xafladda lagu soo dhaweynayo da'yarta runtii ka soo digarogatay xisbiga qaran ee wadani kuna soo biirta xisbiga kulmiye aad bay soo dhaweeyeen waad ku mahadsantihiin waxaan u baahanahay dhalinyarada qaar taqaana oo ka tala bixisa oo mawaadiic soo dhigta dalkeena Soomaaliland iyo cimiladiisa iyo xaaladda uu ku jiro sidoo uga bixi lahaa faqriga uu yareyn lahaa ee uu horumar dhaqaale oo iskaashi u gaari lahaa aqoonta lagama rabo caaqil lagama rabo odaga heliya خدمة عند بولشة TV هرجيسان